Dr. Adam Dero sida ogsoonnahay inta badan dadka shaqadoonka ana waxaan rabaa shaqadoonka inuu yaraado laakiin inuu yaraado shaqo abuurka oo bato haddaba waa maxay su'aalaha ugu muhiimsan oo qofka la weydiin karo sideesa ugu jawaabi karaa qofka shaqadoonaha haddaan su'aashaas ka jawaabo akhyaaray waxa waaye shaqada markii la xayeysiiyo oo la shortlist gareeyo dadkii ku soo baxay imtixaan ay horta soo maraan imtixaanka markii laga soo baxo interview la joogaa interviewga su'aalaha la isku weydiinayo way badan yihiin laba dhinac waaye marka laba su'aalood waa laba qayb waa su'aalaha la isweydiinayo qaarna waxaa la dhahaa waa technical questions qaarna waxaa la dhahaa waa general questions su'aalaha mar walba technicalka ah waxay la xiriiraan shaqada oo tusaale ahaan haddii shaqada la xayeysiiyey oo aad u tartamaysid ay tahay finance su'aalaha technicalka ah ee meeshaas imaan kara waxaa ka mid a balance sheet see loo diyaariyaa engineerata su'aalaha interviewga lagu weydiin karo waxaa ka mid a BOQ see loo diyaariyaa waxaa tahay human resource management aa u tartamaysaa su'aalaha technicalka ah oo lagu weydiin karo waxaa ka mid a sidee dad loo interview gareeyaa ama sidee dad loo recruit gareeyaa loo shaqaaleysiiyaa ayaa ka mid a waxaas dhan waa technical su'aalaha technicalka inaad garan waysid waxa waaye waxay la xiriirtaa waxbarashadaadii aqoontaadii la xiriirtaa oo tusaale ahaan shaqada aad u tartamaysid mar walba waxa ay tahay waxay ku qoran yihiin waxa loo yaqaano job advertisement-ga wixii la soo xayeysiiyey ku qoran yihiin dhibaatadan haysata waxa waaye inta badan ma fahanno job advertisement-ga shaqada la soo xayeysiiyey waxa waaye qofka inuu akhriyo fahmo waayo hadday dhakhtar tahay adoon dhakhtarnimada soo baranin aad rabtid inaad tartantid dhakhtarnimadaas waxaa ku qoran job advertisement-ga shaqooyinka la rabo inuu qofkaas qabto haddaad habeen iyo maalin inta u fadhiisato su'aalaha meeshaas ku qoran ama shaqadaanu qabana oo aad isweydiiso tan maxay tahay inta soo xifdisida xataa su'aalaha ka jawaabi kartaa laakiin qofka waxaa ka maqan job advertisement-ga inaan fahanaa naga maqan hadday finance tahay waxaa la dhahaa wuxuu diyaarinaa kan reportkan uu diyaarinaa waxaas una soo baran kartaa birina waa ka jawaabi kartaa su'aalaha technicalka ah qodobka labaad su'aalaha generalka ah su'aalaha generalka ah waa su'aalo qof kasta adduunka oo ogyahay maanta haddaad weydiiso youtube-ka haddaad geliso general questionska oo interviewga la isku weydiiyo waa wax iska caadi ah waaye kow waxaa lagu dhahaa muxuu ahaa sidee muxuu ahaa iiga sheekay naftaadaa lagu dhahaa naftaada iiga sheekay haddaadan naftaada ka sheekayn karin marka waxa waaye waa kuu dhamaatay su'aalaha generalka haddaad garan weysid waxa waaye waa ku ceebowday waxaa lagu weydiinaa meeshaan tusaale ahaan premier banka imtixaan u galaysaa waxaa lagu dhahaa horta premier banka adi ma taqaanaa maxaa ka taqaanaa premier bank qaarkiin waxaa laga yaabaa inay dhahaan premier bank account ku leedahay aa lagu dhahaa premier bank account kuma lihid premier bank ma taqaanid dahabshiil account kuma lihid ma taqaanid jaamacadda muqdisho shaqo ku siinayso ma taqaanid hay-adaa shaqo imtixaan u galaysaa hay-adda xalay inaad soo akhrisid waa hay-addan maxay tahay maxay qabataa goormaa la aasaasay yaa madax ka ah waa inaad marka ammaani kartid waa inaad sheegi kartid premier bank waddankan waqtigaasoo yimid dadkaasaa madax ka ah waqtigaasaa la aasaasay waxaasna waxaan ka soo akhriyay aniga aadan u jeclahay meeshaan aan rabo inaan muxuu ahaa aan ka shaqeeyo waa inaad saas dhihi kartid macnaha haddii lagu weydiiyo su'aalaha generalka oo tusaale ahaan naftaada lagu weydiiyo iska sheekay lagu dhaho halka mar oo aad jaaniska haysatid oo naftaada aad ammaani kartid waa halka mar oo aad naftaada wax badan aad ka sheegi kartid waxa waaye waa inaad dhihi kartid waa aqaanaa waa qabtaa waa ka soo shaqeeyey achievementigaasna soo gaaray hadda ka hor biladaasaa lay siiyey habeeni maalinaan soo jeedaa waxa waaye aniga shaqada kama daalo waa inaad macnaha aad naftaada xayeysiin kartid aad isu gedi kartid waana sida runta macnaha qofkaasaa soo jiidanaya indhaha marka su'aalana waxa waaye general su'aalana waa technical su'aalaha generalka waxaa kaloo ka mid ah in lagu weydiiyo weaknesskaaga noo sheeg strengthgaaga noo sheeg waa inaad weaknesskaagana wax yar muxuu ahaa wax yar oo lagu dabooli karo ay jiraan sidoo kaleetana strengthgaaga ah haddana ku taataagsato oo wax badan oo macnaha oo aad ku fiican tahay aad sheegto waay waxaan laakiin intaas ka muhiimsan aan idin sheegaa interview inaad ku guulaysato ama su'aalihiis inaad ku guulaysato waxaa ka muhiimsan communication skillka asaatidada iyo banalka dhanna way taabteen akhyaaray qofka maanta markii macallin oo assignment u diro afka qabsanaayo raba inuu markuu meesha soo istaago aan hadli karin assignment-ga iyo presentation ka dhuumanaayo se interview ardadii oo kula faca ahayd oo aad 4 sano isla fadhiseen hortooda waxba kama dhihi kartid see rabtaa banalkan oo kale inaad imtixaan su'aalo ay ku weydiinayaan aad uga jawaabto way kugu adkaanaysaa
marka hadda preparation groundka waxaa haysataa janisa communication skillka iska dhisa luqadda englishka iska dhisa janis badanaa haysanaa isaga dhisa karna asalaamu calaykum waraxmatullah su-aasha labaad waxaan rabaa si toosa ayaan u weydiin doonaa aadan deero waa bare sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa hay-adaha caalamka wuxuuna xubin firfircoon ka yahay Salim Society inta badan sidaan ogsoonnahay shaqaalaha ka shaqeeya hay-adaha caalamiga dalka joogo waxa u badan ajaanib sidoo kale waxaan ognahay dalkeena dhalinyaro badan oo waxbarata ayaa jooga marka ma kala fiiyo hanaanka shaqada inay dhalinyaradeenna fursad heli waayeen maxaa sabab u ah dhalinyaro dalka wax ku barata aqoon leh xirfad leh haddana fursadihii iyaga la rabay inay helaan inayna fursadaas heli waayeen maxaa sabab u ah isleedahay soo dhawaada deero bismillahi rahmaani rahiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yihiin qabanqaabayaasha barnaamijka jiheeye iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha sidoo kale inta martida haddaan su-aashaas jawaabteeda si toosa u galo waxa waaye waxaan dhihi karaa macnaha fursadihii shaqo ee bannaanaa waddankan dad shisheeye ayaa qaarkood la siiyey su-aasha waxay si gooni ah u taabanaysaa hay-adaha caalamiga ah laakiin si kale haddaan u dhaho dadka ajaanibta ah ee waddankan ka shaqeeyo keliya hay-adaha kama shaqeeyaan hay-adaha caalamiga kama shaqeeyaan kuwa localkaana way ka shaqeeyaan sidoo kale bangiyaday ka shaqeeyaan jaamacadahay ka shaqeeyaan private businesskay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan maqaayadaha oo weytaradii ayaga waaye qaarkood waxay ka shaqeeyaan hoteelada oo cleanerkii iyo shaqooyinkaasay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan ayagoo turki ah meelaha dhismaha iyo waxyaabahaas oo dhan way ka shaqeeyaan marka waxaan dhihi karaa horta hay-adaha caalamiga ah keliya ma qusaysa su-aashan sababta keentay marka arrintaas in dadka shisheeye ay ku bataan waddankan ayadoo intaan oo dhalinyaro ah oo waxbaratay waddankan shaqo la-aan ku yihiin maxaa keenay haddii la isweydiiyo laba qodob aan ka dhigaa oo keliya labada qodob aan raba inaan ka dhigo waxa waaye midda koowaad waxa waaye waddankeenna waxaa maqan waxa loo yaqaano sarraynta sharciga waa maqan yahay sarraynta sharciga waa maqan yahay markaan leeyahay waxaan ka wadaa tusaale ahaan tusaale yaraa idin siinaa maalin dhaweyd waxaa baraha bulshada ku arkayseen nin dhalinyaro ah oo cunug yar oo tarabuunka ma aqaan stadio conis inuu ahaa iyo kan muqdisho inuu ahaa ma aqaan calanka soomaaliya ka luxaayay asoo ciyaaraayo dhaansi garaynaayo kadib soo jiitay videogiisii viral noqday oo aljazeera ay soo qaadatay dhammaan la sheergareeyey kadibna muxuu ahaa dowladdeenna ay shaqo siisay waa aragteenaan filaa qofkaas isiga ah ma aha inaan diidayno waa qof muxuu ahaa qaxooti ah muslin ah waddankiisa lagu soo dhibaateeyey waddankaanna ku soo qaxay in shaqo la siiyo macnaha waa caadifadda marka laga reebo laakiin in shaqo la siiyo qofkaas sharciga u baahan tahay waddankan 2015kii dowladda Soomaaliya waxaa la ansixiyey sharciga shaqasiinta shisheeyaha la ansixiyey oo baarlamaanka la marsiiyey laga dooday la ansixiyey la saxiixay dikraato madaxweyne ku soo baxay sharcigaas asiga ah wuxuu qeexaa qaabka loo mari karo qof shisheeye marka la rabo in shaqo la siiyo halka qodob ugu muhiimsan oo maanta aan wada arki karno waxa waaye oo qof kasta markii wiilkaas yarkaa shaqada la siiyey oo aqoon-yahan ah oo ka doodaya baraha bulshada waxa waaye hal qodob sharcigaas shaqasiinta shisheeyaha wuxuu qoraa inta qof Soomaali ah oo muwaadin ah shaqo la'aan yahay inaan qof ajnabi ah waddankan uusan ka shaqaysan karin ama shaqaba la siin karinba haddii loo baahdo in shaqo la siiyana shuruuc loo maraayo ay jirto waxaa ka mid ah qofka waddanka si saxan ku soo galay waxaa ka mid ah shaqada uu qofkan waddanka ka qabanayo qof qabta ma la waayay waa qaban kartiin shaqada qofkaas uu qabanayo dhammaanteen waa qaban karnaa ma la waayo qof qaban karo waxaa ka mid ah qofka dawladda mugu ogolaatay oo macnaha work permit-kii markuu citizen uu ku soo galo muxuu ahaa fiisihii uu ku soo galo work permit-kii ma la siiyey work permit-ka marka shuruudo uu leeyahay oo lagu qeexayo uu leeyahay so ayadoo sharcigaas uu noo qoran yahay oo yaallo ayaa dawladdeena Soomaaliya dadkeedii madaxda ahaa si easy ah ayadoo aan muxuu ahaa sharcigaas oo dhan la fiirinaynin qofka inta warqad loo qoro xafiis la geyn karaa taas waxaan leeyahay marka qodobka ugu weyn uguna muhiimsan waxa waaye haddii dawladdeena ama dadkeena ay sharciga raaci karaan oo maamulkeena oo sharciga raaci karo intaanoo dhalinyaro ah oo joogto oo shaqo la'aan ah qof ajnabi ah shaqo lama siiyeen waa qodobka ugu muhiimsan waa qodobka labaad oo keentay in adinka oo joogo ama dad badan oo muwaadiniin ah ay shaqo la'aan waddanka ku yihiin ajaanib shaqo la siiyo
وهل قضب وكله قضب وكله أنتوا ربنا وقدر وحواي وحامقا وديار سنان تاني معناها ضدك إن باق موضوع ما وديار سنها إن شقينه ديشبلين كي شقة ملأنا بس عبد الحي وهذا وحيرك أنت تجنا وحولها أنا وجامعة سودمي أيام محاك شقينا فصل اللحاد أيام محاك دقايق محوها مادة عربية كدقايق سومها لما أنت محلقة يابا سكول بدلني وباهيه إن المعلمين كوضا نقطان أو كشقيسان لكن مو ديار سنتين أنا كشقيسان ومية محايا لي أنا مركان معلنا هاي وأن جامعة أن كلاسية كبحنا هاي أرض سؤالان ويديا هل سؤاله أرض أن عام كل نقضيها جرت وحواي ضوضا فصل ككينا أو وضن كان مش شغال أنا كجرت مش شغال الآن كجرت وضن كان مش شغال أنا كجرت مش شغال الآن كجرت أرض وحي كليه قاركود معناها شقة موينين شقة قلنتان لا شقة كوق قلنت محيط هاي مركب شقة كوق قلنت معها تنكرية وحفيزك كبلابنا يسمع أستاذ عبد الحي هذا محو شيء جاي حفيزك كمان بلابنا يسمع شقة ميل هوس إنك سو بلابة تواي هل قضب ومهمة وحواي قف كستو رئيسته ما أنت ضد إنجنير رأها جوجو ويكهل الدونان إنجنير كتركي أو حلقولية هاي معناها شقة أو فوندية سوري إنجنير كماها قف كفوندية أو تركي شنن أو سومالية شقة يكون قبل هذا وكل جزء قبل حلقولية مقالة ويكجرتها صو رئيسته قف كويتر مقايدة كشقينا عيو سدح ويتر أو سومالي أو كاغا في عنانا قف كيان أو جبر أو جوري كاغا شقينيسو سدح أفر قبلود أو جوري كاغا شقي وكاغا في عينهم الجوليه معناه قف كسومالي محاكا دمان محانا مقر ديشبلين شقة ديشبلين وباهنته قف كسومالي ما أنت دي حفيز شقة لقاسيو وحلقة يابا وحد نبكو لبس صوري بود قرايا نبكو لبس شقة إمام نبكو قف كسومالي أو حلقة يابا وحد نبكو إن لده لبس على صوري بود قرايا لحسا وحلقة بحا محوها والد وكذا ولا قضايا صدق دقيقة شغلة لوسو نقطة أنت سقف كسومالي قاعد بيس ديشبلين كيني ومقية مركزها وحي كينيسا قبر أو سوبر ماركت مقالة كفرة وحي شيء كينيسي نبكو وجود بدن أنت عن انتربرونر كأها يقبصدي وحواي كل هذا هاي شغال الآن صابت محيتها وحيتري ضدك جامعة كسر بحيث أن يردي شقة سينيسا حفيز كينيسا ماشان كشق وحلا هذا هاي سلس إيجان نقول ماشان كونتر كيفريسو على هذا هاي قفك وحكم مشغول سنة على تلفون كيس إنه قف صوت جلي إنه قف بحي دكان كان مو أجانا يا قفك يا صوت جلايو ما له في فيرنا نركيو نحمر مرة أصلا وحبة قدرنا لقيها بقى إنه بحه والله بين مدين شيء جايو مركا أتكيدان يوغاندان يو إثيوبيدان يمالها مركا جوكتو قفك ويتر أما قفك الدكان كجدايو قفك مركو صوت جلايو كهر تجع ويلكم وليه والله سعنا ما أنت محاوبة أنت كان معه سيا كاس معه سيا كان مركز وحبك الجدون ويسو قفك أسوي كليه هاي thank you for visiting us وأكون ما سنتا صار نوصل بوقته أنا جنا وحواي قفك أصوف اليوم ربع إنه كو أذيعه كو أو شغيسيد أو معناها قفك شغالة قفك انتربرونر كأها وحكون رفاسني إنه هلا قف وشقيه أو شقادي أوديبته مركز أخياري لابد قضب أو كأنتي إن أنا جنا شغالة أنا قلنا ضد أجاري من شغالة سيء وحواي مد كمدا أنا قد شبلين كني أمغان مد اللبادنا وحواي سرين تشرعي جودن كني أيا أدوير وما سنتي ما كبح السلام عليكم